sheekooyinka la midka ah midda aan hadda idinla wadaagayo waa kuwo la yaab iyo fajacba leh. dadku maxay inta badan hadda u hadal hayaan wejiyadan kuu muuqda iyo xumaanta la sheegayo inuu ku hayo magaalada tan ee Muqdisho? maxay tahay dhaqan xumada uu sameeyay Basadiir? yaa xaqiijin kara dhaqan xumada la sheegay inuu la yimid Soomaaliya? maxay yihiin muuqaal laga duubay iyo sababta hadda la sheegayo inuusan ninkaan ahayn sidii markii hore loo maleynayay? yay tahay cidda musaafirinaysa? qodobadaas iyo kuwo kale ayaan kaga hadli doonaa warbixintan ee daawada muuqaalka sheergare oo la wadaag asxaabtaada si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale page-kana follow garay. mahadsanid. Ibraahim Mustafa oo Soomaalida u taqaano Basadiir ayaa show uu dhawaan ku qabsaday Muqdisho kaas oo dadyo Soomaaliyeed ugu daawasho tageen ayaa waxaa ka dhashay hadalhayn kala duwan habdhaqankiisa. majaajilistaan u dhashay dalka Tansaaniya ee Kimbusi oo la sheegay inuu yahay qof muslim ah balse aan xaqiijin karin ayaa dhawaan show uu ku qabsaday Muqdisho waxa uu ku sameeyay falal anshax baalmarsan oo dadka intiisa badan ee ku hadalhayaan baraha bulshada. Basadiir ayaa muuqaalo kala duwan oo laga soo duubay lana soo dhigay baraha bulshada waxa ay muujinayaan isaga oo garbaha ka qabsanaya hablo Soomaaliyeed oo showga u daawasho tagay kana mid ah taageerayaashiisa. waxa uu muuqdaa inuu si ku talagal ah ugu qabsaday garbaha hablahaasi si muuqaalo laga duubo ee u galaan baraha bulshada maadaama dadka intooda badan ay weydiinayeen islaamihii Tansaaniya kula duubi jiray muuqaalada sababta ugu soo tagay si taas beddelkeed ay muuqaaladan uga soo muuqdaan kuwa Soomaaliyeed sidaasna su'aalaha la weydiinayo ay ugu haraan. balse dadka ayaa waxay intooda badan baraha bulshada isku weydiinayeen sababta hablahaasi u ogolaadeen in garbahooda uu qabsado Basadiir, taas oo ah su'aasha ugu weyn ee la iska weydiinayo muuqaaladaasi. waxaa la tagay taageerada u hayaan Basadiir balse uma muuqan garbaha uu ka qabsanayay, mana ahan shaqsi ay fahmayeen luuqadda uu ka hadlayo oo ah Sawaaxili. halka dadka Soomaaliyeed qaarkood ay iyagana hadal hayeen muuqaalkan oo ah Basadiir oo shuminaya majaajilista suufi oo isagu showga haysa ka qaadayay. dhaqanka Soomaalida ka mid ma aha in nin uu shumeeyo nin kale, taas oo ay u yaqaanaan dhaqan aan wanaagsaneyn oo ay adeegsadaan lagaroonayaasha. waxaa Basadiir taas u dheer aflagaadeen uu kula kacay youtuberada Soomaaliyeed kuwaas oo ku tilmaamay inay yihiin kuwa baahan. dadkeena Soomaaliyeed ayaa ah kuwa aad u jecel martida kuna xeeldheer soo dhaweynta bulsho kasta oo wanaag jecel. Farxaan Diraac oo ah ninka malaayiinta Soomaaliyeed baray ninkan Basadiir lagu magacaabo dhawaana u suurtageliyay inuu yimaado dalka maadaama uu horay codsi u dhiibtay taas oo ahayd inuu mar uun jeclaan lahaa inuu yimaado Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho. waxaana go'aansaday in si degdeg ah waddankiisii ugu diro Basadiir. anagu muuqaalkiisa un ayaa isticmaali jirnay, anigu ma aqoon idinkuna meedan aqoon, kaliya waxaynu ka arki jirnay YouTube-ka. haddii safartu soo qabatay odayga kaarkiisii waa gubtay ee waa in aan saaka diyaarad saaro. qofka haddii aanu si quman oo hagaagsan u dhaqmin waa qasab in uu fashilmo. run ahaantii bulshada halkan ku xidhan waxay in badan iga codsadeen in aan Basadiir dalka keeno balse imaanshihiisii kadib qofkeenu moodayna noqon waa, ayuu yiri Farxaan Diraac. in badan oo Soomaaliyeed ayaa ka digayay in loo daawasho tago showga loo qabanayay Basadiir kaas oo ay sheegeen in aysan jirin wax laga faa'iidayo maadaama uusan ahayn fanaan Soomaaliyeed oo soo bandhigaya heeso cusub oo la fahmayo luuqadda uu ku qaadayo. haddaba ma laga yaabaa Basadiir in mar kale uu yimaado Soomaaliya loona soo dhaweeyay sida kalkan loogu soo dhaweeyay Muqdisho?